inaad u quusko dadka nacabkaayo wadadayda raba inay isku diraan weji bay gashadeen hodhan hadhow yaa مركي مرة أنا كل حساب حتى صح ها وسوالك الله يكفر الحمد لله ما شاء الله ugu dambeyn wax badan oo laga sheekeeyay fanaaniintan colaadooda iyo siyaabo walba oo loo huriyaba waxa ay beeniyeen in markan colaadi ay ka dhaxayso Qatrax iyo Hodanba labadaba si wada jira ayay kaga soo muuqdeen masriixiyada 26 Juun oo ah markii xornimada ay qaateen gobolada waqooyi munaasabad xilli habeen ka dhacday magaalada Hargeysa labadan fanaan waqti badan waxa ka dhaxay colaad dagaal iyo waliba iyo in ay warbaahintu ibaraha bulshaduba ay isku mariyaan ereyo xanaaf ah isku weeraraan waxa soo dhan waxa uu sababa Mursal Muuse oo Qatar Saliima markii hore xaaskiisa ahayd caruurna ka dhalay ugu dambeeyna ka dal doorsaday Hodan Cabdiraxmaan Hodanna ay Mareykan ka soo tagtay ay soo degtay magaalada Hargeysa khilaafka iyo waxan ka sheekadan waxay ahayd mid taagneedii dhowrkii sano ugu dambeysay laakiin si lama filaan ah labadan fanaan ayaa mar qura lagu arkay masraxiyada munaasabada 26 Juun ee ka dhacday magaalada Hargeysa markii xornimadu ay qaateen gobolada waqooyi ama Somaliland baandhaho muuqaalkina caawa ayaa daawad ku falanqeyn doona wax walba oo ku saabsan dagaalkii waqtiga dheeraa ee u dhaxeeyay Qatrax iyo Hodan Cabdiraxmaan oo guud ahaanba la soo gabagabeeyay talaabadaas oo Mursal Qudhiis ku farxay dhamaanba sheekadan fanaaniinta gacanta ka geystay in la xalliyo dagaalka labadan fanaan sidee ku dhacday in hal stage ama hal goob ay ku wada kulmaan labadan fanaan yay ahayd cid ka shaqeysay arintan doorka ugu weyn ee labadan fanaan inay kulmaan ay heshiiyaan yay ahayd cid ka shaqeysay maxaa ka jira in fanaanada Yurub Kenya iyo fanaaniin kale ay qayb weyn ka lahaayeen doorkan firfircoon Mursal Qudhiis muxuu ka yiri in ay heshiiyaan labadiisii hore waa xaaskiisii hore Qatrax iyo xaaskiisa hadda ee Hodan Cabdiraxmaan dhamaanba sheekadan iyo muuqaaladan ayaan caawa aan ku falanqeyn doona hoyga fanka iyo suugaanta ee xulashada fanka iyo xogta fanka ayaad naga daawanaysaan waa laba channel oo bahawdaagu baahinta wararka la xiriira arrimaha fanka daawadayaal sheekadan ayaan markan gudageli doonaa halkan oo hoyga fanka hadda daawado ku cusubna nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibadana joogtada halkan ku xiran anagoo waliba daawadayaashana u ballan qaadi doona in sheekooyinka la xiriira arrimaha fanka iyo waliba dhacdooyinka ugu waaweyn toddobaadkan aan howlo shaqo iyo safaraan ku maqneen darteed ay keentay inaan wax badan arrimaha fanka ku saabsan aan daawadayaashana aysan u soo bandhigin dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay dawyaqadan ama sanadkan inkastoo hadda laga soo kabanayo xanuunka coronavirus oo ah xanuun adduunyada kala xirxiray kaas oo aad u yaraa dhaqaaqyada socodka iyo in dadku isku kala gudbaan iyo waliba in la qabto bandhig faneedyada iyo showyada fanaaniintu loogu bartay hase yeeshee markaan aad moodo in COVID-19 ama coronavirus adduunyadu dhan ay kasii gudbayso Soomaaliyana ay markan si tartiib ah oo xanuunkan kugu sii yaraanayo waxaan bilaabi doonaa hadii kadib barnaamijyada gaarka la xiriira arrimaha fanka iyo waliba dhacdooyinka ugu waaweyn ee fanka ee daawadayaashana ugu barteen hoyga fanka iyo suugaanta anagoo soo qaadan doona waliba dhacdooyinka ugu xasaasisan ee waqtigaas jira daawadayaashana inay aad u xiiseynayaan aan u aragno waliba inuu yahay kan ugu fiican inaan daawadayaashana aan u soo qaadano waagaagii sheekadina caawa ayaan gudageli doonaa dagaal waqti badan u dhaxeeyay labada fanaan Qatar Saliima iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay dagaalka in la soo gabagabeeyana waxa la sheegay in sabab u ahayd kadib markii fanaaniinta labaduba lagu cazumay xaflad ka dhaceysay magaalada Hargeysa xafladaas ay ka qayb galayeen madaxda talada haysa xisbiga kulmiye ugu horeeyay madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba xubnaha xisbiyada kale ee wadani UCD ugu horeeyay Injineer Faysal Cali Waraabe iyo waliba gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro munaasabadaas waxay mid laga soo shaqeeyay laguna maamuusay munaasabada 26 Juun oo ah markii xornimada ay qaateen gobolada waqooyi sidoo kalena ay soo socto toddobaadka xorriyada iyadoo lagu guda jiro ay soo socdaan 1 Luulyo ama 1 Julaayo oo ah markii ay israaceen gobolada waqooyi iyo koonfurta kadibna ay midoobeen
dhammaanba munaasabadahaas ayaa guud ahaanba dalka oo dhan ka soconaya Soomaaliya oo dhan Muqdisho way ka dhaceen Hargeysana way ka dhaceen marka sheekada Hargeysa waxay ahayd mid xasaasi ah oo durbara indhaha caalamka iyo waliba indhaha Soomaalida gaar ahaan arrimaha fanka fanaaniintu aad u wada qabsatay markii la arkay munaasabada 26 June stage-ka heesaha fanaaniinta reer Hargeysa xidigaha oo ay mar qura la arkay inay ka soo dhex muuqdeen saf ay ku wada jireen Hodan Cabdiraxmaan iyo waliba Qatra Saliima sida sawirka ama video-ga idinkaga muuqda aad aragtaan kuwaas oo qaybka fanaaniinta masraxiyada heestani kulmisay ogowse daawad waxaan ku xaqiijinayaa in heestani ka hor labadan fanaan oo la ogaa inay ku kulmayaan masraxiyada fanka laakiin markii dambe arintan ay ka shaqeeyeen si aysan gudaha hoolka munaasabada isku dagaalin ama ereyo xanaf ay isku marin ama buuq usan ka dhalinba arintaasi ka hor waxa uu saagay fanaaniin badan oo cirro uu ku jiro iyo waliba Yurub geeyo iyo waliba fanaaniin kale oo xidigaha ah ayaa la sheegay in arintaas ay u istaageen si ay arintan xal ugu gaaraan fanaaniintaas ayaa la sheegay in ugu dambeyn ay ku guuleysteen badi fanaaniinta xidigaha oo gudoomiye ahaa furin leh ay arintaasi ka shaqeeyeen iyadoo oo intaysan bandhig faneedkan ama habeenka heesaha inta la gaarin ka hor heshiiska uu soo dhacay labada fanaan la heshiiyay ayagoo heshiis ah ayaa la sheegay in markaa wixii ka dambeeyay ay ku wada kulmeen masraxiyada masraxa maxaa dhacay Qatra Saliima iyo waliba Hodan Cabdiraxmaan ayaa hees wadani ah wada qaaday mursalna gadaal dambe uu ku soo biiray muuqaalka heesta isagoo la arkay qaybta dambe ee dhabarka dambe Hodan Cabdiraxmaan oo waardiyo ka hayay Qatra Saliima oo ay Hodan Cabdiraxmaan ku wada kulmeen xafladda munaasabada 26 June oo ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaa hal mar markii la arkay labadan fanaan oo masraxiyada ka wada heesaya hoolka ama munaasabada hal mar waxa ay qabsadeen sawaxan qaylo iyo dholo cadeyn badan oo ay dadku aad ugu farxeen markii ay arkeen labadan fanaan oo culaad iyo waliba ereyo xanaf ah wax badan baraha bulshada isku mariyay hase yeeshee markaan si laab qabow niyadsan ay masraxiyada heesa kaga muuqanaya qaylo kadibna markii Qatra Saliima la sheegay waxa la noola xaqiijiyay waliba in Qatra Saliima ay aad kaga roonaatay Hodan Cabdiraxmaan ay ka fiicnaatay tanaasul badan ay sameysay ayna ka tanaasushay waxyaabo badan ay ku adadkeed oo mowqifkooda ahaa ayadoo huwan caalanka Somaliland iyo Qatra Saliima mar qura stage-ka lagu arkay si lamida Hodan Cabdiraxmaan oo dharkeeda caadiga wadata laakiin xaamil ah ayaa mar qura in stage-ka lagu arkay waxayna ka soo dhex muuqdeen stage-ka ama goobta xafladda ka dhacisay waxaana ku weelinayay fanaaniinta Yurub Kenya Asma Love Asma Saban iyo waliba fanaaniin kale xidigaha geeska waxaana muuqaalkan oo mid aad loogu wada shaqeeyay labada fanaanba in halkaas ku kulmaan ayna isdhaafsan ereyo xanaf ah ama aysan keenin wax dhibaato ah waxa ila xogagaalay waliba kuwa kale fanaaniinta xidigaha geeska ay hoyga fanka iyo suugaanta ay u xaqiijiyeen channelkeena in labada fanaan ka hor intaysan stage-ka ku kulmin laga shaqeeyay sidii ay u heshiin lahaayeen heshiis ayaana la dhex dhigay oo ku saabsan inay iska iloobaan wax walba oo dhaxmaray colaada wax walba oo labadooda khudad ay isku qabaan ama laga shaqeeyay taasoo keentay in labaduba ay markii dambe ay ka heshiiyaan ugu dambeyn stage-ka ay ku wada tagaan ayagoo wada qanacsan waxayna qatay sawir muuqaal qabsada baraha bulshada oo wax badan dadku ay ka falceliyeen dagaal waqti badan dhowr sano u dhaxiyay dagaalkan sidoo ku yimid dad badan baa is weydiinayaan dagaalkan wuxuu ku yimid markii fanaanka Mursal Muuse uu qabay Qatra Saliima ayna u dhashay 3 caruur ah hase yeeshee ay kala tageen kadibna dal waa fanaanka la yiraahdo Mursal uu guursado Hodan Cabdiraxmaan Hodan waa qof aynaha ku dhalatay magaalada Hargeysa hooyada Aamina Cabdullaahi ayaa Hargeysa degan familkeeda ayna waxay ka mid ahayd xidigii geeska inkastoo markii dambe Hodan ay u wareegatay dalka Mareykanka tani markaasi waxa la tuhsanaa in Hodan iyo waliba Mursal uu hadad jacayl xiriirna ka dhaxay inkastoo ay labadooduba ay soo guurar gaar ay soo mareen Hodan ay soo guursatay aalta iyo fanaaniin kale Mursal loo Qatra uu soo guursay laakiin waqti dambe ayuu calafka iyo waqtigu saaciday markii Hodan iyo Mursal ay isku guursadeen magaalada Hargeysa iyo dagaalku sii xumaatay Hodanna baraheeda bulshada ayay ku soo qartay ereyo xanaf ah oo dhaawacaya qalbiga Qatra Saliima Qatra samaysan ka aamusin way ka falcelisay wax walba arimahaas ku saabsan baraheeda gaarka Facebook-ga ayay ku baahisay iyo waliba qoraalo gaar ah iyo muuqaalo ay duubtay oo ay baraha YouTube-ka la geeyay
dagaalkaasna wuxuu ahaa mid markaa wixii ka dambeeyay uu noqday mid si weyn u qabsaday baraha bulshada websaydyada iyo weliba sidoo kalena labada dhinacba baraheeda Facebook ay isku mariyaan xitaa waxaa la kala ilaaliyay xilligaasi inay ku kulmaan xafladaha munaasabadaha xidigaha geeska ay dhiganayaan iyo weliba sidoo kale wax walba oo ku saabsan munaasabadaha waaweyn Hargeysa ka dhacaya 2018 2019 ilaa 23 sano ugu dambeeyay dagaalka labadan fanaan ka tagna Hargeysa ayaa waxay sababtay in labada fanaanba aysan ku wada kulmin stage ama heeso oo ay kala ilaaliyaan tusaale haddii xidigaha geeska oo ay Qatar Saliima qayb ka tahay ay bandhig fanaanyo meel ku qabanayaan lagama yaabo in hodan ay tagto sababta ugu weynse waa Qatar oo aysan doonin in wajigeeda aragto oo stage-ka ka muuqata haddii xaflado ama goobo kale lagu casumo hodan oo aysan Qatar joogin lagama yaabo Qatar inay tagto stage-kaasi hodan ama moolaha meesha xafladu ay ka dhacayso sababtuse waa hodan oo dagaal uu kala dhaxeeyay aysan doonin in muuqaalkeeda aragto inkastoo labada fanaan ay ku wada sugnaayeen magaalada Hargeysa laakiin waxay kala joogeen laba xaafadood oo kala duwan taasoo keentay in labada fanaan aysan is arkin laakiin eriya xanaafa isku weerareen baraha bulshada sheekadana waxay noqotay mid xasaasi ah ugu dambeyn 3 sano kadib waa la soo afjaray dagaalkii waqtiga dheeraa ee u dhaxay labadan fanaan ayagoo isla jira ayay si kooban ula hadlay warbaahintu waxay yiraahdeen wax walba waad naga sheegteen wax walba waayna tiraahdeen annaga ugu dambeyn waan heshiinay heerka rabnana waan gaarnay taasoo muujinaysa ugu dambeyn wax walba sheekadana inay isku soo afjarantay waagaaga daawadayaal muuqaalkiina hoyga fanka iyo suugaanta aad ku daawanaysan channelkeena YouTube-ka ee hoyga fanka iyo suugaanta halka ayaan kusoo gabagabeynayaa mid la mid ah intaan ku kulmi doono waa bahda hoyga fanka iyo suugaanta habeen wanaagsan nabadgelyo